TV isha wararka saacad walba ku xirno Lego TV indhahayga u jeedaa indhahayga waxa u jeedaa kitaab gacan billaahna wariye maxamed cabdiwahaab nuur abuuja ayaa maanta ka soo hormuuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ciidamo ka tirsan nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa Abuuja 7 bishii Maarso xabsiga dhigay waxaana 4 bilood kadib maanta la horgeeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida inta uu Abuuja xirnaa ayaa saxafiyiin iyo ururada saxaafadda waxay dawladda Soomaaliya ay ka codsadeen in xorriyadiisa dib loo siiyo wariyaha hase yeeshee 22 Abriil ayaa qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya waxay ku sheegtay in Abuuja loo haysto kamid ahaanshaha al-shabaab iyo dil Maarso 2018 ka dhacay degmada Boondheere ee gobolka Banaadir waxa ay muwaadin Soomaaliyeed oo dalka u dhashay xaq ku leh xaqna lagu leeyahay waxaan filayaa in xaqayga maanta ay soo bixi doonto insha Allah taala maxkamadana kala saari doonto hadii dambiila ahay in dambigayga lagu qaado koob hadii in la soo dulmiyo oo Ilaahay og yahay rasuulkiisa og yahay in dambiga lagu soo oogay oo been abuurka ah in maxkamadda xorriyadda oo ku salaysan cadaalad wax badan la yiraahdo cadaalad marka waxaan rajaynayaa maxkamadda aan ka rajaynayaa in wariye maxamed cabdiwahaab nuur oo xirfadiisu u xiran in uu helo cadaalad dhageysiga garmaqalka dhanka ka ahaa eedeysane maxamed cabdiwahaab nuur intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso billaah